وكاس وحوستا خميس يا عمامد والله يفوت كنت عرضون وها حسن قال وين سلام ما فيسبوك لك عادي اظن حنا ولا فيسبوك ما هي عرضون انا قلنا عادي اد بنكون سوي ما هي فيصل فيزا halgamayaal badan baa barbarkiisa taagan oo ah uu ka mid yahay saxafiga dawlad iyo Saciid Gahayr abwaana oo muddo badan u halgamayay isagana soo deyntiisa Saciid ka waran maanta wallahi dareenkaygu aad baan ugu faraxsan inuu cadwaan helo xuquuqdii xorriyadii ka maqnayd madaxweynaha oo ku hambalyeynay inuu cafis u fidiyay aad iyo aad codkiisa ayaa si toos ah ku gudbinaya halka warbaahinta kula hadlaya imika saxaafaddu way isku badan tahay sababtoo ah in badan bay shid baasha guuleed waxaan in yar ka cudur يا ريال هذا هان صان هذا الكيس وقرر وأيوه بالعمية متولد يا رجال ويبقى الوجرة ده لغوي هو هيا والله شو نيجا هيا حكين هيا أدوك هش أنا هوس لا فريسة ما أنا هوس لا فريسة بسم الله الرحمن الرحيم عد يوم مغلسة بسم الله الرحمن الرحيم هيا إن شاء الله اسكبلو تيار سمتيلي ير ايوه كسوي عاد وكسوي هذا هذا صدر ما هي حوي ها بس قال انكم عرنا مجد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa halkan dee la jooga warbaahintii intayna daawanaysa iyo idinkaba waxaan idin xaqiijinayaa maanta inaan xorriyaddeedii helay maanta ay taariikhdu tahay 15 Shawaal 1441 hijriya oo waafaqsan 6 bisha 6 2020 anigoo la xiray magaalada Burco laga soo qabtay taariikhdu markay ahayd 17 bishii afraad ee 2019 maanta xor baan ahay ilaahay baan u mahadnaqayaa لك الحمد يا رب حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا إلهي بانو مهدنقيا مهدنقنا سوكو بكرا وحان دين شيغايا هداد اسويدينيسان قابكان كسو بخاي waxaan ku soo baxay cafis madaxweyne ayaan ku soo baxay halkan waxaan uga mahad celinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay soo deyntayda ma magacaabi karayo waa badan yihiin aad bay u badan yihiin si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa oo runtii yani waxa weeye goolkii ugu dambeeyay dhaliyay gudoomiyaha xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Cirro oo runtii ku dadaalay inaan xorriyaddeedii helo waxaanan ilaaweyn oo isaguna ka qayb qaatay gudoomiyaha xisbiga ucud injineer Faysal Cali Waraabe oo isaguna siideynteedan ugu dambeysay ka qayb qaatay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi أقبلات أو كأقبلي إن الحرية دي هلا وحن كلو مهد علنيا قف يو دينع يو هيئات عد كست أو كقيب قاضتي إن ما أنت حرية دي هلا أو كحما إن حدناضو أو دعينا أو كتامي أو رتشين يمرون إن الحرية دي هلا وحشنا ضديو أنا لقرني أو على العالم كتشوجا وأنا مقعدو دلاقون أو خيري وين رتشيني oo garab istaag weyn ii muujiyay intan gudaha ku jiro ilaahay baa kuwa og waxaan mahad celinayaa hay'adaha xuquuqda aadanaha ee ka shaqeeyay ee arrimahayga ka hadlay
kuwa wadaniga hay'adda xuquuqda kuwa wadaniga sida hay'adda xuquuqda Hargeysa ta qaranka iyadana waan mahad celinayaa waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa oo aan marnaba aan iga hadhin Amnesty International منظمة العفو الدولية iyadana waan mahad celinayaa hay'adda Human Rights Watch iyadana waan mahad celinayaa barlamaanka midowga Yurub oo arrinkayga ka hadlay isagana waan mahad celinayaa sheel baan ka soo baxay waxa weeye warbaahintu waxa weeye halkan aad igu timaadeen waxa jira dadyo badan oo aanan ogeyn oo dhaqdhaqaaq sameeyay waxaan mahad celinayaa saaxiibadaydii muxuu ahaayay ee garabkayga ahaa ee markasta muxuu ahaayay arrimahayga ka hadlayay ee arrimahayga markasta muxuu ahaayay idila wadaagay ma ilaawi doono waxa weeye way badnaanayaan oo runtii waxaan diidayaa inaan magac gaar ah xusaan diidaya ma doonayo maanta inaan hebel iraado haddaan hebel ku bilaabo hebeladu way badnaanayaan maanta waxaan doonayaa muxuu ahaayay inaan intaa ku soo koobo waxaan si gaar ah inaan ilaawin hooyaday oo runtii iyadu xidhnayd anigu maan xidhnayn hooyaday baa xidhnayd waxa weeye burcay ka imanaysay halkan ay igu imanaysay waxa weeye garabkayga ahayd ehelkayga waxa weeye sida ay igu samreenna jazaahum allahu khayr maanta anigu halkan muxuu ahaa weeye hadal argosiya ama hadal maaga ka odhan maayo waxa weeye maanta waxa weeye waxaan waad ogtihiin yani marxaladda aynu ku jirno iyo xaaladda aynu marayno waa marxalad muxuu ahaayay ay tahay inaynu gacmaha isqabsanno waxaan ku baaqayaa inaynu maanta gacmaha isqabsanno waxaan ku baaqayaa inaynu bog cusub furno waxaan leeyahay anigu hadalkii uu ku yidhi nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam markii uu jeelka ka soo baxay walaaladii ayaan aniguna leeyahay waxa weeye shaydaan ayuun baa ina dhex galay wax kale ma jiraan waxa weeye maanta waxa weeye xaggii dambe eegi mayno xaggii dambe waynu ka nimi bal xagga hore aynu muxuu ahaay u soconno innagoo istoosinayna innagoo isla talinayna innagoo aan aamusayn laakiin waxa weeye wixii hore way tageen waxaanan jeclaan lahaa inaynu muxuu ahaayay aynu halkaa ku soo koobno waxa laga yaabaa inaad su'aalo idinku taagan yihiin su'aalo idinku taagnaana inta badan muxuu ahaayay waan ka jawaabay mana doonayno muxuu ahaayay waxa weeye wanaag mooyaane wax kale oo inaga baxaa maanta ma jiro marka ma ku qanacaysan warkayna saa u qaadataan aad iyo aad buu mahadsan yahay saaxiibayaal idinkuna aad baad u mahadsan tihiin cabdimaalig muuse cordoon su'aalaha gadaal ayuu warbaahinta kala hadli doonaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin dhammaantiin saaxiibayaal